Somali honesty noqo qofka ugu horeeya ee muqaaladana daawada marka dhibaatada ugu kaliftana sheeshada sida ogtahay waxa loo soo saaray dumarka masayrsan baradaan bayaati qabsado dhamac la ii saaro dhugta iyo xinka iyo sidii dhumbir qaraxday dhumbir waxa qori oo baadiyaha lagu qaato xilgaab la yiraahdo dhawaaqoon baa la yiraahdo dhumbiraha ka soo baxaya yaa fuuluhu dhan isu ku saabaan dadka caba maxay ka faa'iidaan sheeshada maxaa qatar caafimaad oo ay kala kulmi karaan saameyn intee leeg ayay bulshada ku leedahay isticmaalka sheeshada maxay ka qabtaa diinta islaamka haddii ka dhigtaa just waxay ka dhigtaa isha qof oo farxaan ay ka dhigtaa problem kala ma laha waxaan u arkaa shiishadu sigaar inay walaashi tahay waxtar iyo waxyeelaba waaqiiq la wadaagayo buuri bay bah wadaag la tahay annaguna sidoo kale ilmahan carruurta kaga baxsanaa iskuulka waa ka beelanaa waa wax iska caadiyo diintana ilaa hadda maanaan maqal meel ay shiishada kaga hadlayso ku xaaraantinimaynayso ilaahay wuxuu yiri wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith ilaahay wuxuu ka xarimayaa dadka khabiithka wixii oo dhan marka shaki mara sigaarka iyo shiishada iyo maaragtay qaadka iyo waxaan ku leeyahay xashiishka waxyaabaha soo dhan oo walaalahan ku magacawnay gidigood inay khabiith yihiin waana wax iska caadiyo waxay leedahay hadda dad caafimaad xumo u keentayna maanaan arag wax ka cabanaya intay naga cabeen oo yiri waa ku jireen maanaan arag dadka yimaado dhan kulligood markay noo yimaadaan ay bahasha cabaan waxay ku leeyihiin anagoo faraxsan baan meesha ka tagnaa garaacida wadnaha ay aad u kordhinaysaa nikotiinkan blood pressure kan aad ay u kordhinaysaa qofka dhiikar qabo waa mataqaan waa sii kordhinaysaa qofka sokor qabana sidaas oo kale sokorta aad ay u kordhinaysaa waxay kaloo keenaysaa nikotiinka xinjiro dhiig inuu ku sameysmo muddan cabay waa waday waxay noqotay markii dambe in aan ka qaado asmo neef baan ka qaaday hadda weli neefta waa haysaa muddo haysa inaan ka qaado aniga